askartii waxay baaritaan ka galeen gabadhii meydkeedii. runtii arrin fara badan ayaa kaga soo baxday arrintaas oo ah arrin ay la yaabaan oo mucjiso ku noqota. runtii gabadha arrintii markii baaritaan laga galay oo qolada caafimaadka ama CID qaybta caafimaadka loo gudbiyey, gabadhii waxaa kasoo baxday in kufsi daran loo geystay. 5 qof ilaa 4 qof ay kufsadeen ayaa kasoo baxday. kadib waxaa dhacday gabadhii in jirkeeda la baaray, farahana ay noqdeen faro aad iyo aad u fara badan. runtii faraha waxaa lagu sameeyey baaritaan, waxaa soo baxay 5 qof ilaa 6 qof oo asxaaba wiilka iyada la dhashay ah. waayo caalamka waxaa jira qofka waxaa laga hayaa farihiisa, waxaa laga hayaa sawiradiisa. markii farihiisa kombiyuutarka lagu xareeyo waxaa soo boodaya sawirkiisa. runtii markii ay soo baxeen 5 qof ee gabadha kufsaday farahooda, ayaga cilada ugu weyn ama dambiga ugu weyn ay galeen waxay ahayd gabadha farahooda kamaysan ilaalin. waayo qofka markaad kufsanaysid faraha kama ilaalin kartid, ilaan xaalad waxaad ku sugan tahay aad iskontarooli karin. marka gabadhii kufsiga markay u geysteen, kadibna ay dileen, kadibna ay ku tuureen webiga in muddo ala ugu dambeyn meydkeeda gacanta lagu soo dhigay. wiilkii walaalkeeda ahaa shirqoolayna iska dhigay nin aan war iyo waayo u haynin, asxaabtiisana aan ka warhaynin, dembigana aan lug ku lahayn. laakiin haqa sidiisa banaanba ama ha soo daaho ama ha soo degdego waa kii soo daahira ama yimaada. marka waxaa dhacday gabadhii markii la baaray, dembiilayaashii farahooda kasoo baxeen, sawirradooda kasoo baxeen, kiiskii aad iyo aad ay ugu fududaaday. waayo in badan ayay ka daba ay ku wareersanaayeen in kiiskan ay xaliyaan. marka waxaa dhacday gabadhii alxamdulillaah waa la helay 5tii qof ee kufsatay sawiradoodii. laakiin halkay ku dambeeyaan, halkay joogaan lama hubo, laakiin dhalashadooda iyo wejigooda waa la helay. runtii arrintaas cabsi weyn ayay ku abuurtay gabadha wiilka la dhashay. waayo arrintaas haddii wiilashaas lasoo qabto asigana wuu fishilan yahay. ha fishilma hadduu doonay, laakiin fishilkaas wuxuu noqon doonaa fishilka dunida ugu ceebta badan. waayo gabar walaashaad haddaad shirqooshin, haddaad hala kufsado, hadday iswaashina hala dilo, waa dembiga ugu weyn, teeda kale ugu doqonnimada badan ayuu noqonayaa. marka waxaa dhacday ninkii arrintii way ku culusaatay, wuxuu ogaaday in asxaabtiisa dembiga ku cad yahay oo lagu soo socdo. asxaabtiis ayuu la kulmay, weliba magaalo kale ayuu kula kulmay. waayo in magaaladan ka carran ayuu dhahay, isaga carro u dhahay magaalo xaaladda markay degto markaas kadib ay kusoo noqon doontaan. asxaabtii way baxeen, hotel ayuu magaalo kale ugu kireeyey si ay ugu badbaadaan booliska. laakiin boolisku wuxuu ahaa boolis aan ciyaar qaadanayn, meel walbo tagtidna inuu kaga daba imaado aan waxba la ahayn. marka waxaa dhacday ninkan saaxiibadiisa ayuu la kulmay, wuxuu dhahay meeshan isaga fogaada. hotelkii ayuu kula kulmay, marka ugu dambeysay meeshuu dejiyey ayuu kula kulmay. wuxuu dhahay dembigan lacala haddii idinku waa idinku cad yahay, waxaan idinka codsanayaa inaan ceebeenin, lacag intaad doontaan oo idin siinayaa, hay ceebeenina, hadhihina ninkan ayaa na soo diray ama arrintan shirqoolkan walaashiisa asiga u dhigay, hay dhihina anigana waxaan rabaa in aan ka noqdo arrintan bari. gabadhaas waa idi dhaafiseen oo silacay igu haysa, laakiin almuhim aniga dembigan inaan lug ku yeesho ma rabo. waxaan idin codsanayaa in aad ii badbaadisaan, lacag intaad doontaanna waa idin siinaya. runtii wiilasha afkoo isaga dhaheen waa ogolnahay, laakiin cid ogoleed ma jirto dembiga inay iyada keliya dusha iska saarta asagana uu ka badbaado. marka waxaa dhacday way ka ogolaadeen. hoteelkii ayuu ka bixin jiray, wax walba u baahan yihiin ayuu u keeni jiray. in muddo ay booliska ku raad joogeen, iyagana wiilasha hoteelka kama soo bixi jirin, hoteelka kama soo asiga ayaa wax walba dibadda ugu baahdan ama banaanka ugu baahdan asiga u keeni jiray. in muddo markii arrinta ku jirtay askartan ay dabagal culus ku hayeen iyo baaritaan culus ku hayeen, ugu dambeyn waxaa arrintaas soo dhexgalay nin hoteelka degnaa oo CID ahaa ayaa isaga dhigay dhalinyaradan nin caadi oo shicir ah, isku soo dhexdaray, uu la cabeynayay, uu la sheekeynayay, sawiradiisna wuu hayay, sirbaar ayuu ku sameeyey. wuxuu dhahay arrintii ayuu dabagal ku sameeyey. arrintii ugu dambeyn askartii uu yeeray 5 nin inay meeshan joogaan uu u sheegay. ayagana uma haystaan nin askari ah, wuxuu haystaa nin shicib caadi oo hoteelka la degan. bas ninkaana guriga meesha inuu imaanayo wax walba asiga u keenayo wuu arkay. marka wuxuu dhahay idinka maxaa dhacay, dibadda ma u baxaysaan miya, ma iska soo baashaalaysaan oo iska soo soconaysaan? may anaga uma bixino, dibadda uma bixino oo waxaan nahay dad nasiino usoo baxay oo reerkooda kasoo tagay, bila buuq inaan noqono raa bulshada, haddaan rabno reerkeena ayaan la joogi lahayn ayay dhahay. marka ugu dambeysay ninkan askartii ayuu u yeeray, wiilashii waa la qabtay, xabsigaa la geeyey, saldhigii baaritaan ayaa lagu sameeyey. waxa la kiiskan say u geysateen horta marka ugu horeysa waxay isku dayeen in maxaa la jiray dhahan anaga waa cabsaneed, gabadhi sidaas ugu dhacnay, iyadana way cabsaneed, cid is-ceshataa la waayey, sidaas aawadeeda ayaan arrintaas samaynay. marka adiga hor ugu dambeyntii gabadhii waxaa waay xiladaas ayaa nagu dhacday. saas iyagoo rabay inay wax walba ku dhameeyaan, laakiin arrintii cadaadis badan ayaa la saaray, baaritaan badan ayaa lagu sameeyey. ugu dambeyn sirtii in laga soo saaro ayaa go-aan lagu gaaray. ugu dambeyn way dembigooda way kharteen, waxay dhaheen anaga arrintan wax nagu qasbay gabar walaal
walaalkeeda waayo gabadha walaalkeeda iyada waxa ka dhaxeeyay cadownimo dagaal ayaa ka dhaxeeyay sidaas aawadeeda marka gabadha inaan kufsano kadibna aan dilno asiga lagu amray sidaas la socda arintii waxay la noqotay askartii arin aan abka soo qabanin reerka gabadhan qaab loogu sheegay aan jirin dunidu dhanbo in laga khariyo arin istaahisha inay tahay askarta way dareemeen way la yaabeen ugu dambeyn wiilkii walaalkeeda ayaa la soo qabtay waalidiintiisa ayaa loo yeeray waxaa la gabadhiina ninka shirqoolay in la kufsado kadibna la dilo amri waa wiilkiina marka sidaa la socda hooyadii iyo aabihii arintii waxay ku noqotay arin xun oo qaracna oo naxdina waxay ku noqotay arin mucjiso ah waayo gabar walaalkeeda meeshii ka difaaci lahaa asaga shirqoolay oo dambi weyn ka galay waa arin waxay noqotay cajiiba oo mucjiso ah dadkii dhan caalamka dhan way la yaabeen waxay dhaheen maxay tahay ninka walaashiisa in la kufsado amrayo oo in la dilo amrayo maxay tahay arintii waxay noqotay arin mucjiso oo la yaab leh runtii gabadhii xaqii laga galay ugu dambeyn uu soo daahiray arintii raggii kufsadeen oo gacanta ayaa lagu dhigay walaalkeedii shirqooleen gacanta ayaa lagu dhigay hadda waqtul xaadirkan waxay ku jiraan xabsi daa'im iyagoo kii ugu yar haduusan jirin waa 50 jir wixii ka sii weyn iyo wixii dhintayna waxa way adiga ugu yaraan 2 qof ayaa dhimatay oo xabsi ku dhex dhimatay inta kalena kii ugu yar jira haddii 50 jir walaalkeedana dadka nool ay ku jira xabsiga ay ku jiraan marka waxaad ogaanaysaa almuhiim sheekada waxa uu soo qaadanay in adiga aad ku tusaale qaadatay isna ceebka guriga ka jira horta uu horeen waalidiinta ayaa sabab noqon kara waxaa loo baahan yahay waalidiinta inay carruurta isjeclaysiiyaan ay ka dhaadhiciyaan inay garab isku yihiin ay fahansiiyaan inay dad walaalo oo isku roon oo garab istaagi kara inay yihiin waalidka ayaa la doonayaa in ubadkiisa waxaa ka dhaadhiciyo teeda kale waxaa kale la doonayaa labada qof ee walaalaha si kasta isku neceb yihiin in uu necebkooda gaarin eera is shirqoolaan ama cudur isku adeegsadaan qofka walaalkaaga ah waa isnici kartaan dagaal waa idin dhexmari karaa laakiin looma baahna in adiga cadow kale dhexdiina uu ka faa'iidaysto ama qof kale uu dhexdiina soo galo waxaa loo baahan yahay labadiina isxalisaan hataa isku dhacdaan in isxalisaan waayo walaalkaaga si kasta u xun yahay kalama maarantaan si kasta u xun yahay ma kala go'i kartaan waayo dhiigii dheecaan ayaa idinka dhaxeeya iyo xidid waxa way garab ayaa isku tihiin labadiina waxa isku tihiin laba qof oo isku tiirsan waxa loo baahan yahay akhawad walba idinka hor imaad si isku wada jir inaad ugu hortagtaan si isku mid ah ugu hortagtaan si labadiina aan nigala dhex faa'iideysan oo silac iyo saxriir aadan dib u gelin marka waxa idin leeyahay walaalnimadu waa shay muhiim ah waa shay qaali ah oo wax kaliya anaga aan ku noolnahay dunida oo kaliya ay wax isugu taraamahane markii la dhinto qabri la tago wax walaalnimo ma jiraan qof walba amalkiisa ayaa u walaala amalkiisa ayaa garab u ah marka inta dunida ku nooshahay ayaa walaalnimada qiimaha ay leedahay aad fahmi kartaa marka walaalnimada dad haysid dad ayaan walaalahaysan dad ayaan ehel haysan dad ayaan qaraabo haysan oo maanta kelinimo dunida kula nool laakiin aad dad ehel iyo qaraabo haysan ma inaad ku jibatid oo qiimahooda aad garan weysid wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh